بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بقى محله هل كان اسمه كيني مدحوينها جمهورية سومالان مدن موسى بيه عبدي قدوميها قولها وكيلة مدحنا دي بي ويل قدوميها محكمة السرية جمهورية سومالان مدحنا دي بي ويل xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada gudoomiyaha gobolka saaxil gudoomiyaha degmada berbera madax dhaqameedka culaamadiinka madaxda asxaabta madaxda asxaabta qaranka dhammaan martishaafta kale ka soo qayb gashay waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin waxaanu maanta halkan ku daafuraynaa qalab cusub oo soo gaadhay dekedda caalamiga ee berbera qalabkaas oo ay ka mid yihiin 3 wiish oo waaweyn oo nooca loo yaqaano mobile harbor cranes oo xaddigooda qaadistu uu dhan yahay 120 tan qiimahooduna ay dhan yihiin midkiiba 4 milyan oo dollar isugeyntooduna ay tahay 12 milyan kuwaasoo maraakiibta wax ka reegi doona kana dejin doona run ahaantii waxaa maanta farxad weyn noo ah inay yeelato dekeddu markii u horreysay wiishash ay leedahay oo ay wax ku dejiso marka hore waxaanu ku dejin jirnay wiishashka saaran maraakiibta iyo wiishash ay xaddigoodu la egyahay ka u badani 70 tan wiishashkii maraakiibta aanu isticmaali jirnay xilliga xagaaga markay gaadho shaqadu way naga istaagi jirtay waana naga yaraan jirtay sababtoo ah waxa weeye dabayshu markay luxdo markabka containerkii lama qaadi karo ama dhaawac buu geysanayaa mararka qaarna shaqada waanu joojin jirnay 2 saacadood ama 3 saacadood taasoo ku keenta caqabad weyn ganacsatada isticmaasha dekedda iyo annagaba waxaan maanta halkan ka caddaynayaa inay arrintaasi soo gabagabowday wiishashkan waaweynina ay naga dabooli doonaan baahidaa muddada dheer ay dekeddu u qabtay insha allahu taasina waa guul soo hoyatay dekedda mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin waxaa sanadkii hore soo gaadhay dekedda berbera isaguna taag cusub oo xaddigiisu yahay 3,000 oo hoos baawar halka taaggii horena uu ahaa 1,400 oo hoos baawar labada taagba hadda way shaqeeyaan oo maraakiibta way soo xidhaan mudane madaxweyne mudanayaal iyo marweyn maadaama shaqaalaha aanay hore u isticmaali jirin taaggan cusub waxa aanu contract uu yeedhnay si ay noogu tababaraan shaqaalaha taaggan cusub oo ka duwan kii hore run ahaantii 100% hadda waxaa u socda tababarkii 5 bilood ayay ku jiraan waxaanu ku eegyahay muddo sanada insha allah waxaana hore 7 bilood muhiimadda koowaad ee dekedduna waxa weeye in la tayeeyo shaqaalaha dekedda si wax soo saarkoodu u wanaagsanaado 100% mudane madaxweyne waxaa kaloo jirta iyaduna in ay si habsami ah hadda u bilaamatay dhismihii 400 mitir ee container terminalka ahaa kaasoo noqonaya mid aada u casri ah wiishashkan maanta halkan waa mobile harbor cranes iyagu taayirey leeyihin kuwani dekedda terminal containerskaana waa qaar ku dhisan oo loo dhisaangareeyey insha allahu waxaananu rajaynaynaa hadda dhibta naga haysta maraakiibta waaweyn waxaanay u iman karin dekedda waxaa ka mid ah driveka oo hooseeya oo halkii laga rabay inuu noqdo 18 mitir hadda maraya 12 mitir insha allahu marka la dhisayo iminka ay dhammaystiranto intaanay bilaabin bisha 7aad waxaanu bilaabaynaa qoditaankii dekedda si uu gaadho dherarkiisu 18 mitir si mothershipska ka yimaada China iyo duniduba ay toos ugu soo xidhaan aanu u bilowno markaa transshipmentkii dunida oo dhan
dhismihii dekaduna si habsamila ayuu socdaa. waxaanan jecelnahay insha allahu inaanu ku daba joogno muddadii loogu talagalay ee ahayd 2020 bisha September. waxaananu filaynaa bil kastana waanu ku dabagalnaa sidii ay ku dhammaan lahayd insha allahu, iyaduna inay soo gabagabowdo. mudane madaxweyne, mudanayaal iyo marwooyin, dekadu waa albaabka ama dhuunta Somaliland, waxa ay wax u soo maraan. sidaa awgeed madaxweyne, annagoo ku shaqaynaynaa barnaamijkaagii waxqabad ee xukuumadda, mar walba waxaanu heegan u nahay oo naga go-an inaanu casriyeyno dekadda oo aanu ku soo kordhino maankaaniyaadkii ay u baahnayd ee dekad yeelan lahayd, si aanu la jaan qaadno mandaqadda ama geeskaba. insha allah waxaanu rajaynaynaa 2020 September wixii ka dambeeya intaanaan gaadhin inaanu ku soo kordhino waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin dry dock lagaga shaqeeyo maraakiibta, maadaama mandaqadda halka aynu ku naalnaa ay maraan 30,000 oo markab si ay ugu soo leexdaan ama crewga ay ugu beddeshaan. shaqa abuur fara badanna insha allahu waanu rajaynaynaa inaanu soo sameyno 2000 ilaa 2021 haddii alla yidhaah. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee usoo ajiibteen. mar labaad iyo mar saddexaadba mudane madaxweyne waan idinka mahad celinayaa. aad ayaad u mahadsantihiin.